قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. Sulaymaan waxa uu si habsami leh u guda galay dhisidda dawladdiisa waxaana uu xilka kala wareegay aabihii iyada oo reer banu Israa'iil oo dhami ay midaysan yihiin dhulkoodina gacanta ay ku hayaan. sidaas awgeed ayaa uu Sulaymaan xoogga waxa uu u saaray in uu caalamka oo dhan iyo dhammaan makhluuqaadkaba gacanta ku dhigo waxaana uu Ilaahay weydiistay in uu siiyo mulki aanu siin cid isaga ka horeysay siina doonin cid isaga ka dambaysa. Ilaahay waa uu ka aqbalay Sulaymaan ducadii waxaana uu siiyay cilmi badan xikmad faham sareeya awood jireed iyo mid caqli waxaana uu Ilaahay u sakhiray jinka iyo shayaadiinta sidoo kalena waxa uu baray luqadda xayawaanaadka waxa kale oo uu Ilaahay u duleeyay dabaysha oo inta ay qaado ayaa ay geen jirtay meel kasta oo caalamka uu ka doonayo. dabayshaas oo xawaaraheedu aad u sareeyay waxa ay geninka hore socon jirtay masaafo 30 maalmood loo kala socdo iyada oo galabtiina intaas in leeg jari jirtay. Sulaymaan waxa uu ka faa'iideystay deeqda uu Ilaahay siiyay mid kastana amaba duul kastana waxa uu u diray xil iyo mas'uuliyad u gaar ah. tusaale ahaan waxa uu jinka uga faa'iideysan jiray in uu xilliga nabadda ku shaqeeyo oo ay ka howlgalaan dhismooyinka sida qasriyada iyo wixii la mid ah. sidoo kale waxa ay badaha guntooda ka dooni jireen kana baari jireen macaadiinta iyo dhagxaanta qaaliga ah. waqtiyada dagaalkana waxa uu u adeegsan jiray ciidan ahaan. sidoo kalena Sulaymaan waxa uu aad uga faa'iideystay xayawaankii oo mid kasta halka uu ku fiican yahay ayaa uu uga danaysan jiray sida guuguulaha oo kale oo hudhudka ama guugulu waxa uu u qaabilsanaa in uu ciidanka biyaha u sahamiyo. inta waxa uu dheereed in ay boqortooyadiisu ahayd mid ay ku badhaadheen kuna barwaaqaysteen dadkii ku hoos noolaa maxaa yeelay waxa uu Sulaymaan ahaa nin cadaaladda ku adag waxaana uu Ilaahay ka baryay in uu Ilaahay xukunkiisa iyo garsoorkiisa cadaaladda leh uu ka dhigo ka uu ku maamulo boqortooyadiisa waana uu ka aqbalay Ilaahay ducadaas oo go'aan kasta oo uu gaadho nebi Sulaymaan waxa uu ahaa midka uu raalida ka yahay. Sulaymaan waxa uu gaala bixiyay koonka oo dhan waxa uu marba u duulaa halka ay joogaan dadka ka gaaloobay oo waxa uu la galaa jihaad waxa kale oo uu dib u habeyn ku sameeyay Baytul Maqdis oo sida aynu xilqadeennii hore ku soo sheegnayba waxa masaajidkan dhisay nebi Yacquub dhisidda masaajidkana waxa ka dambeysay qisadii cajaa'ibta lahayd ee aynu xilqadeennii hore ku soo aragnay. sidoo kalena waxa uu nebi Sulaymaan samaystay qasriyo aad u qurux badan oo lagu sharaxay dhammaan macaadinta qaaliga ah oo idil maadaama oo uu Sulaymaan ahaa boqorka kaliya ee gacanta ku hayay awoodda dunida sidoo kalena uu ahaa nebi soo diray waxa uu xil weyn iska saaray gudashada mas'uuliyadiisaas isagoo inta jihaad iyo dacwad ku jira ayaa uu haddana ku dadaali jiray markasta in uu sii kordhiyo sina laban laabo bana uu nimcooyinkiisaas ugu xamdi noqo. waxa dhacday mar in uu Sulaymaan ku hamiyay sidii uu khayrka u kordhin lahaa waxaana la sheegaa in uu yiri caawa waxa aan isku marayaa 70 kamid ah xaasaskayga si ay igu dhalaan 70 wiil oo diinta u jihaada waxaana uu ilaaway nebi Sulaymaan in uu yiraahdo insha Allah. sidaas awgeedna 70kii dumarka ahaa 69 kamid ah ma aysan dhalin oo uur may qaadin halka midda soo hadhayna ay iyadu dhashay qof dhicis ah oo aan dhamayn. Daawud intii aanu dhiman ka hor waxa uu qabyo kaga dhintay meel lagu cibaadeysto oo uu dhisayay waxaana uu Sulaymaan dhameystiray markii uu xilka la wareegay isagoo ka faa'iideysanaya awoodda uu siiyay ee isugu jira insiga iyo jinkaba waxaana uu u xil saaray dhisidda haykalkaas ciidan jin iyo insigaba ka kooban. ciidankan ku hawlanaa dhisidda macbadka waxa loogu magac daray Manson oo u dhiganta ku dhisayay amaba dhisayaal waana meesha uu magaca Maasoniyiintu ka soo jeedo waxaana uu Sulaymaan u dhisay goobta cibaadada si aad iyo aad u miiqaam sareysa markii uu gabagabeeyay waxa loo bixiyay haykal Sulaymaan oo haykal waxa ay u dhigantaa masaajid amaba goobtii cibaadada. nebi Sulaymaan waxa uu geeriyooday waqti ku qiyaasan sanadkii 931 ee miilaadiga hortii isagoo xilkana qabtay sanadkii 917 ee miilaadiga hortii waxaana uu mulkiga hayay dhowr iyo 40 sano. nebi Sulaymaan dabadii dawladdii Yuhuuda waa ay kala qaybsantay oo waxa ay u kala jabtay laba dhinac oo kala ah koonfur iyo waqooyi. qaybta koonfureed waxa hogaaminayay inankii uu dhalay nebi Sulaymaan ee la oran jiray Raxiib Caam waxaana taageersanaa laba jirib oo qura
kuwaas oo kale ahaa jilibka Yuhuuda iyo jilibka Benyamin, waxaana ay dowladooda u bixiyeen dowladu Yuhuuda iyaga oo caasimadna ka dhigtay Orshalin ama magaalada Qudus, waxaana xukunkeeda u kala dambeeyay 21 boqor. tobankii jilib ee kale ee reer banu Israa'iilna waxa ay boqor u doorteen oo hogaaminayay wiilkii kale ee uu dhalay nebi Sulaymaan lana oran jiray Yarbicaan, waxaana uu Yarbicaan ka xanaaqay markii uu dhaxal sugaha nebi Sulaymaan ka dhigtay wiilkii isaga ka yaraa ee Raxibcaan. sidaas awgeed ayaa inta uu u xanaaqay uu dhulka uga kudaalay oo waxa uu qabtay Masar. markiisa nebi Sulaymaan dhintay ayaa uu dib u soo noqday, waxaana uu boqornimadii ku qabsaday walaalkii ilaa ay wadankii kala goosteen oo ay laba dowladood kala noqdeen. waxaana uu dowladiisu u bixiyay dowladu Israa'iil iyaga oo caasimadna ka dhigtay Saamira oo ah iminka magaalada Nablus la yiraahdo. taladeedana waxa uu kala dambeeyay 19 boqor. oo marka la isbarbar dhigo cimriga labada boqortooyo waxa cimri yarayd boqortooyadan Israa'iil. bilowgiiba markii uu abaabulka iyo kacdoonka Yarbicaan bilaabay ayay Yuhuudi u tageen Raxibcaan, waxaana ay ku yiraahdeen haddii aad iga daysid ababa naga saamaxdid qayb ka mid ah shareecadii iyo axkaamtii nebi Sulaymaan waanu ku taageeraynaa, haddiise kale oo aad didid boqornimadeed. Raxibcaanna waa uu diiday inuu shareecada gorgortan iyo tanaasul ka galo. kadibna 10 jilib oo Yuhuuda ka mid ahi waxa ay taageereen Yarbicaan, halka labada jilib ee Yuhuuda iyo Benyamin ay iyagu Raxibcaan boqoradeen. labadan dowladood ee Israa'iil iyo Yuhuuda waxa ay durtaba bilaabeen dagaalo iyo colaado dhexdooda ah, taas oo wiiqday awoodoodii, waxaana markasta joogto u ahayd weerar iyo weerar celis u dhaxeeyay Yuhuuda kala degan labada dowladood, taas oo sababtay in ay ku soo dhiiradaan cadowgii ku hareereysnaa. aakhirkiina waxaa dhacday in lagaga takhalusay labadii dowladoodba. haddaba daawade aynu ka yara sheekayno sidii ay u burbureen iyo cidda baabisay dowladihii Yuhuuda, waxaana aynu ku horeynaynaa dowladii Israa'iil ee ay ku midaysnaayeen 10 jilib ee reer banu Israa'iil, caasimadooduna ahayd. sanadku markuu ahaa 911 ee miilaadigu hortay waxa boqortooyada Aashuuriyiinta laga aasaasay waqooyiga Ciraaq, waxaana ay talinaysay ilaa iyo sanadkii 626 ee miilaadigu hortay. boqortooyadan oo muddadii ay jirtay ay u kala dambeeyeen 15 boqor waxa ay lahayd awood ballaadhan iyo cudud ciidan oo xoogan sida ay taariikhyahanadu wariyaan. innakuna aynu kor ku soo sheegnayba dagaal joogto ah ayaa u dhaxeeyay labadii dowladood ee Yuhuuda iyo Israa'iil. marka quwad ahaan la isbarbar dhigana waxa awood roonay dowladda Israa'iil oo 10 jilib ayaa ku bahoobay, halka dowladda Yuhuudana ay 2 jilib oo quraahi wada lahaayeen. haddaba boqor ka mid ah boqoradii ka talinayay dowladda Yuhuuda ayaa ka codsaday boqorkii kale ee isna ka talinayay dowladda Aashuuriyiinta in uu dagaal ku soo qaado dowladda Israa'iil oo uu burburiyo, waxaana uu u ballan qaaday haddii uu arrinta oofiyo in uu siin doono abaalmarin weyn. intaa kadibna waxaa soo ambabaxay ciidan tiro badan oo ka socda dowladii Aashuuriyiinta, waxaana ay dagaal ba'an ku qaadeen Israa'iil. dagaaladaas oo si ba'an loogu jabiyay Yuhuudi deganeed dowladahaas, waxaana dadkoodii loo laayay si aan hore loo arag. in badan oo iyaga ka mid ahna waxa ay u qafaashteen dhulkoodii, halka ay boqortooyada dumiyeenna ay ku beereen dad badan oo ka soo jeeday Aashuuriyiinta. waxaana ay xilligaas Aashuuriyiintu u ogolaadeen tiradii yareed ee Yuhuudda ahayd ee ku hadhay meesha in ay samaystaan ismaamul u gooni ah oo hoostiga boqortooyada Aashuuriyiinta, waxaana ay boqor hoosaad ama barasaab uga dhigeen Hushacni la oran jiray. boqorkii ka talinayay Yuhuuduna markii ay Aashuuriyiintu oofiyeen codsigiisii waxa uu isna oofiyay ballantii oo dahab iyo fido aad u fara badan ayaa uu Aashuuriyiintii ku abaalmariyay. sanado kadib markii uu dhintay boqorkii hore ee Aashuuriyiintu, xukunkana uu la wareegay Shalansarkii sanaad ayaa boqor hoosaadkii lagaga tagay Saamira. waxa uu isku dayay in uu ka xoroobo Aashuuriyiinta, waxaana uu u jaray xiriirkii isaga oo ku baaqay dagaal. kadibna waxa uu soo kici timay ciidan xoog leh oo uu hogaaminayo boqorkii Aashuuriyiintu. ciidankii Aashuuriyiintu waxa ay soo dul fadhiisteen caasimadii Saamira oo iyadu dagaalka si weyn ugu diyaar garowday, waxaana ay saareen go'doomin ku qaadatay muddo 3 sano ah. intii xisaarka lagu jirayna waxa geeriyooday Shalansarkii sanaad. dabadeedna waxa xilkii Aashuuriyiinta kala wareegay Sarjuunkii labaad, isaga ayaana ku guuleystay sanadkii 721 ee miilaadigu hortay in uu magaaladii furto. kadibna waxa uu askaxa ka dhigay 10 jilib ee Yuhuudda ahaa. intoodii soo hadhayna iyaga oo dulaysan ayaa uu u qaxiyay buuraha Kurdistaan iyo nawaaxigooda, halka ay waxoogaa tiro yarina u barakaceen dowladii ay walaalaha ahaayeen ee Yuhuuda. waxaana uu boqorkaasi magaalooyinkoodii ka dhigay Dambas iyo Loomacayaan.
tobankii jilib ee yahuuddu sida ay taariikhyahano badani ay qabaan waxa ay ku dhex milmeen bulshooyinkii ay u barakaceen iyaga oo qabatimay caadooyinkoodii kuna hadlay luuqadahoodii taas oo u fududeysay in ay isdhex galaan oo ay kala guursadaan aakhirkiina sanado fara badan kadib waxa ay qaateen diintii kiristaanka ahayd sidaasna waxaa ku baaba'day diintoodii rasmiga ahayd iyo isirkoodii yuhuudnimada ahaa waxaana jira doodo sheegaya yuhuudda maanta nooli in ay ka tafiiran yihiin labada jilib ee yahuuda iyo benyamin oo keliya